soo dhawo marka hore magacaaga saddexan barnaamij garashoodaag ma dhageystaa haddaad dhageystay maxaa si gaar ah kuu soo jirtay waa dhawahay magacaygu waa Mukhtaar Cabdi Xuseen waxaan ka mid ahay dadka sida dhow la socda barnaamijka garashoodaag barnaamijkan waxa waaye barnaamij in badan aan ku xirnaa wuxuuna ka hadlaa inta badan madacadooyinka sida mataqaanaa in isbedelada mataqaanaa cimilada sidoo kale wuxuu saaraa focuska wuxuu saaraa maqalafaadka bulshada waxyaalaha curiya aad ugu xirnaa barnaamijkan maxay tahay aragtidaada barnaamijka markaad qiimaysay mawduucyada kala duwan oo ka hadlo maxaa u malaynaysaa inuu si gaar ah kuu soo jiito aragtida waxay tahay barnaamijkan maadaama uu yahay barnaamij wacyi ah oo bulshada wax badan mataqaanaa ka anfaca haday noqoto maqalafaadka bulshada wacyi gelinta nadaafada waxyaalo badan waxaan aaminsanahay barnaamijkan in la sii wado waliba mataqaanaa in la sii ballaariyo oo Soomaaliya dhan la gaarsiiyo maadaama hadda uu ka shaqeeyo gobolada qaar uu ka shaqeeyo in la baahiyo ilaa heer Soomaaliya la gaarsiiyo maadaama barnaamijkan uu yahay barnaamij bulshada qiimo weyn ugu fadhiya deegaanada ku nooshahay waxyaabaha sida gaarka dhibaatooyinka uga dhaca maxaa kamid ah برنا waxaa kamid aniga waxaan ku noolahay deegaanka gobolka Mudug waxaan lagu tiriyaa meelaha inta badan ay ka dhacaan dagaalada shaqaya ka dhacaan ama dagaalada dirirta baadiyaha noqoto waxaan aaminsanahay barnaamijkan inuu wax badan inuu ka bedelay waaqiciga bulshada maadaama maanta inta badan dadku ay fududaatay in wacyi gelinta in ayagu joogo guryahooda la gaarsiiyo maadaama la isticmaalo aaladda internetka waliba dadku ay ballawatan barnaamijkan maadaama uu baxo sina idaacadana uga baxo qaab live oo Facebook uga baxo ana waxaan aaminsanahay inuu barnaamijkaas dadka xataa inuu gaarsiiyo in guryahooda ayagu joogo dadkii laga wacyi geliyo in aan mataqaanaa nabadii mataqaanaa in lagu wada joogo in aan dhibaato in la diro inay dhibaato tahay marka waxaan aaminsanahay barnaamijkan aniga wax badan oo badan inuu fadhiyo bulshada uu fadhiyo qiimo badan uu fadhiyo isbedelka cimilada kala qayb ka ah waxyaabo barnaamijku ka hadlo deegaanada qaar colaadaha ka dhaca marka ma is leedahay wax badan buu ka caawin karaa dadka inay nabad ku wada noolaadaan oo si nabad ah deegaanada u wada daaqaan oo dadku ay uga faa'iideystaan roobkii iyo deegaankii برنا horta waxyaalaha inta badan isbedelka cimilada waxa la keenay waxa la dhihi karaa wax inta badan dadka isku dira barnaamijkan maadaama uu awood u saaro in dadku ay deegaanka ay ku nool yihiin ama baay'ada ay ku nool yihiin inay ilaalsadaan waxa way wax badan soo korinaysa maadaama dadkii loo sheego in waxay haystaan ku filan tahay ilaalsadaan si nabad ay u wada daaqaan waana wacyiga jiro barnaamijka inta badan aad uga hadlo in dadku ay baay'ada ay ku nool yihiin dadku inay ilaalsadaan ayna si nabad ay ku wada joogaan ay wada daaqaan